السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كيني حاشي فيجوال channel كنا نكبرنا وحي لحلينا ملتيميديا هذين نقطة فوتوشوب بريمير إلى أفتر إفكتي waxaan ku jirnaa tutorial bilowha oo aynu ku baranay Photoshopka tutorials oo hashayntan xabo oo aynu marana maanta kiishanaad marka waxaan soo qaadanay layerska layer toolska iyo systemka Photoshop ku shaqeeyo waxaan soo dhamaan soo qaadanay maanta waxaan qaadanayna tools qayb kamid ah oo la yiraahdo spot healing brush iyo patch tool saddexda tool baan qaadanayna inaga sawiro badan isticmaali doona markaan bilowno waxaan ku horanaynaa spot healing brushka waayahay file open ayraho sawiradan aan imika isticmaalay waxay igu jiraan link in description ka igu jiraan markaas automatically ayaad u download gareysanaysaa waayahay aan ku horeeyay markaas spot healing brushka way sawirkeena koowaad waa kan waxa lagu talagalay in gabadhan finankan yareeyaha ka masaxno marka waxaan tegaynaa spot healing brush waa kaas xaga ay ku jiraan laga yaabaa marka ugu horeysa inuu saayahay waad xajinaysaa spot healing brush remove marks and blemishes wixii marks ka ama calaamadaha ayaa lagu talagalay inaad kaga saarto marka kan koobaad waxa la spot healing brush waa wax lagu talagalay waxyaaraha yar yar ee imika sida kan naga maqto sawirkan lagu talagalay in laga masaxo waxa kale jira imika healing brush oo ah kii ugu horeeyay sameeyeen oo lagu talagalay inaad qayb sample ka qaato sawirka deetanaad ku dib bedesho iyo ka dambeeyo patch toolka waayahay ka ugu horeeyaan qaadana marka spot healing brushka kan automatic buu shaqeeyaa marka ugu horeysa waxaad tagaysaa normal xagana waxaad tagaysaa content aware fill deetana sawirkaaga ku furan bad deetana marka waxa ku soo baxaysa goobo iyadoo yar marka koobaad marka right click aad siiso yaraanaysa marka dambana weynaysanaysa marka waxa leekaysanaysa kolba intaad rabtid baa leekaysanaysa imika kuwa yar baan ku horeysanayna meelaha yar baan ku horeynayna marka click baa siinaysa automatically saaga masaxaya click taasoo ku wasa space bad qabanaysa doonaysa inay gacanta yar ku soo baxdo deetana click baa siinaysa mouse ka saa waxa jinaysa qaybaha kale sawirka u tagto hay loobin space bad qabanaysa deetana gacanta yar baa ku soo baxaysa waayahay aan dib uga baxo control minus iyo control plus horaan soo dhiganay meelaha yar ka dareynaa in ka masaxno waayahay sawiradan waxay kugu jiraan marka waayahay dad markaan masaxno marka aadana qaybi waaweynaa deetana clicktina ku xajinayna marka qaybaha waaweyn clicktina saa ugu xajinayna deetana waxaan ku sawirnaa circle isaga automatically ka masaxaya waayahay kana isku dayno ka masaxo marka spot healing brush fana kan deetana saad ugu masaxaysa marka automatically saad ugu masaxaysa way marka sawirkeeni saasayna ku nadiifinay xaga sare wax ma ku jiraan way xog ma jiraan maybe meelaha xiriir ku jiraan way marka spot healing brush waa automatic sugo waxa ugu horeeya clickta xajinaysa waxana waxaad ku galaysaa chat hadda shift iyo qabato chat ku celceliso oo ku soo baxay intuu isku dhani aan iska xidho mid kale inoo furo file open eraho sawir kale raadiyo okay kan oo ka yar adag yahay way aan spotka ku horeyno ku yar weynaysanaya goobada in yar waayahay marka ugu horeysa waxaan ku horeynaa spotka sawir xaqiiqo inaan fahmo waayo dhan waayahay automatic marka isaga wareejinaya circle ku yar wareejinaya yar weynayo waayahay aynu marka isku daynayna ka masaxno waayahay automatic buu marka markaad kligu siiso yar wareegaya yar deetana saa ka masaxaya waayahay marka hore intaan ay soo dhameeyno kadibna markaas aynu intaan marsaa ku wadaydhaho waayahay kana waayahay marka si kala dhadhooyin oo kala masaxayna sayna hadhow toolay noogu fududaato inaynu waayahay kana yar waayahay kana yar marka suu Photoshop automatically uu helo meel uu ku bedelo waxa muhiim ah marka hore inaad si uu kala yareeyay inuu soo kala masaxdid deetar marka dambaad way clicktan xajinaysaan circle weyn ugu sameeyo waayahay kana yar saa ku dhacdo waayahay marka saad arkaysaan automatic buu wada masaxay zero taabto marka kana saad arkaysaan automatically waxaan isticmaalay spot healing brush kan isticmaalay xaga sarna content aware fill buu ahaa waayahay aan mid kale soo furo file open eraho marka waxaan soo furay marka waayahay marka sawirka meesha waxaan ka masaxnaa riyaa kale ka masaxnaa meesha way aan ku horeysiyo taas spot healing brush kan ku jira wali way tan aan ku masaxo
وهي نكون صحة waxa kale imika isticmaalaya ka kale ee loo yaqaan healing brush kan isagu wuxuu ku weydiinaya sample inaad meel sample garayso marka alt bal xajinaysa deetana calaamadeeda naqam soo saaraya soo arkaysaan altada xajinaysa deetana click batinaysa meesha doonaysid deetana marka xagaas ku sample gareeyay deetana automatically goobada soo arkaysaan wuxuu kugu bedelayaa bartaas ku bedelayaa waayay mar labaad hadana sample ka qaado deetana loodaas xagaas ma ku bedelayaa waayay hadana sample kan ka qaadaya deetana automatic ban ku bedelayaa waayay simple hadana sample ba xaga ka qaadaya deetana saasan u saxaya okay marka click xajinaysa marka wixii masaxaysi inkaan ku celiyo mar labaad waayay good waxaan isticmaalnay marka spot healing brush kii ku xigay baan isticmaalnay way kaana saasan masaxna marka waayay aan iska xidho inagoo isticmaalna spot healing brush isaga waa tan ii sheegay alt bad qabanaysa sample bad qaadaysa deetana markaas aad meesha doonaysay aad ku buufinaysa way sawir kalaan furaya hadana kana furaya imika laakiin kan waxaan isticmaalay wax loo yaqaano batch tool way labadii hore waan soo qaadanay imika saddexaad baan isticmaalaya aan soo dhaweeyo sookeyga aan ku noqdo batch tool marka wuxuu shaqeeyaa source iyo destination source ku aynu ku horeeyna source waxa weeye inaad click siiso source baad dooratay aan soo dhaweeyo marka selection buu sameeyaa marka click tad xajinaysaa qayb baad dooranaysaa qaybtii marka doorto wax lagu weydiinaya source xagee ku bedelanaa lagu leeyahay deetana dhexda qabanaysaa wixii deeta soo qaadaysaa xagga ay ku bedel baad leedahay okay haddana si select bas selection yar bas aad u sameynaysaa kan automatically isaga batch tool ku selection ka wata deetana aad qaadaysaa xagga ay ku bedel baad leedahay okay good waayay saddexdan haddana aan doorto labadana waayay xagaas ugu bedel baan waayay click baad meel banaan siinaysaa markaad ka dhamaysato waayay aan sii wada wali aan ka saaro xabadana meeshaan ka saaran soo dhaweeyo saasan daroo nagu sameeyaa marka kii hore ka fududiyo qaybaad sawirkaaga dooranaysaa deetana qaybta kale ugu bedel qaybta ugu bedel baan ku dhaafay automatically waayay xabadana soo doorto aan qaado marka iyadana deetana automatically marka isaga sameeynaya wax loo yaqaan calculation deetana suuga saar lahaa isaga ayaa galiya hawshada waayay tan ka dhex saara meesha deetana xariga yar baan la sameeyay xariga okay good waayay click batinaysa marka meel suuga baxo waayay kana aan doorto marka good marka waxaan ku jiraa maxay source inaan meel doorto inaan wixii selection ku sameeyo deetana meel aan doorto wixii meesha ku jiray oo dhan ka saaray waayay saasan click kuwan hadaan doono ka saari karnaa hadda doonaysaan all right so saddexna mar wada wada dooro inkastoo barka tagay meel banaan kala galay deetana waxaan u qaaday xagga mar u qaadaya dhag ka saaray saddexdiina waayay labadaas iskaga jiraan iyaga sawirka clean ka dhigna sawirka waayay sawir kale marka waxaan isticmaalnaa wax loo yaqaan source waayay imika waxaan isticmaalnaa destination waay shimbiraana soo qaadaya destination wax kale maaha isagu sawirka soo qaadaya meel kale u dhigaya kii hore u kaliin garanaysa soo shimbirta baan soo qaadaya hagan destination ma ka dhigaya deetana soo qaadaya xagan ii keenbaan leeyahay automatically kuma saaraysa halkaana geey tan soo qaadayadana halka geey okay marka shimbirahaygii baan badsanaya okay taan xagaas baan geystay waayay yaa kaloon soo qaada okay xabadan soo qaadayadana halka keeniyadana tii horena lagama xumaynayo deetana marka xalaakan destination baa la dhahay kii hor source waa kan laakiin destination baa la dhahaa waayay haddaynu doono labadan soo qaad mar kale soo qaada halkaan oo beeyagana all right marka meel kasta uu match garanaya isaga hagaajinaya waay wuxuu isticmaalaya wax loo yaqaano artificial intelligence marka isaga waxa la dhahaa destination waxa ku jiraan waa maxay batch toolka deetana source destination pair waay file open mid kale waxaan imika hagaajinaynaa xabada sawirka oo ah kii dambeeyay kana hagaajinaynaa marka waxaan ka saarnaa wax meesha ku jiro oo dhan ayaan nadiifinaynaa waxaan ku reebaynaa bisada yar waxaan ku reebaynaa qofka yar marka zoom waa control plus iyo control minus ay control plus ma taabanaya waayay waxa isticmaalaya wax la yaqaan source so batch toolka isticmaalaya deetana aan kaliin gareeyo marka okay so abada meesha ka saar waxa ugu horeysa okay kana meesha ka saar labadan meesha fadhiyana ka saaro ay wax maatay aan ku soo celiyo
meel kana diiday aan ku bedelo soo aayar baan dooranaya marka labadan waxaan soo kaxaynay xagan kale aka caadi noqday way intan xagan u yara qaad ay control d baan taabanay way kan klin garaa xaga ku bedel labadan klin kale xaga ku bedel labadan qof qaad iyagana si aan u doorto baan ku bedelayaa waayahay xageer bay qaxmaatay iyadana marka la sameeyo okay labadan dhagax qaad ay ku bedel kan qaad ay ku bedel kan qaad ay ku bedel soo qaad kana xageer ka sareysa ameeyar xagana ku bedel waayahay wallahi qaad ay ku bedel inta marad baan ku celinaya okay good inta xagan ku bedelayaa way xagan qaar kale ay harsan dad kale ay harsan soo dhaweeyay iyagana intaas ku joojinaa maanta marka waxaan isticmaalaa wax la yaqaano spot healing brush oo ku shaqeynaya automatic healing brush oo isagoo alt ku shaqeynaya oo aynaad qays sample garayso iyo brush tool oo ku shaqeynaya maxay source iyo destination intaas maanta ku joojinaa intaan dib ugu kulmi doono story-ga lixaad maxamed xashad. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.